السلام عليكم kusoo dhawaada walaalayaal barnaamijkeenii xigmadaha qaybtiisii ama cashirkiisii labaad. Xigmadaha maanta aan soo qaadan doono waxaanu ka soo xiganay diktoorkii Masriga ahaa ee la oran jiray Dr. Ibrahim Al-Faqi. Dr. Ibrahim Al-Faqi ilaahay ha u naxariistay diktoorka oo ahaa tababare nololeed. xigmadda ugu horeysa wuxuu ku yiri haddii aan jiri lahayn khilaaf u dhaxeeyo xaqa iyo baadilka, xaqu wax macno ah ma uusan yeelan lahayn, taasoo loola jeedo xaqu ma cadaan lahayn haddii aan jiri lahayn baadil opposite ama cagsi ku ah. sidoo kale wuxuu yiri culays iyo dhibaato haddii aan jiri lahayn fudeedka iyo nicmadu wax macno ah ma yeelan lahayn. oo qofka caafimaadka haysto tusaale ahaan caafimaadka inuu yahay shay weyn oo nicmo ah wuxuu dareemi karaa marka uu xanuunsado oo jirado oo cudur ku dhaco. daal haddii aan jiri lahayn raaxadu wax macno ah ma yeelan lahayn, oo raaxo lama fahmi lahayn haddii aan la daali lahayn. markii la daalo ayaa raaxada la fahmi karaa inay tahay shay muhiim ah oo dadku u baahan yihiin. murugo iyo tiiraayo haddii aan jiri lahayn farxaddu wax macno ah ma yeelan lahayn. mugdi haddii aan jiri lahayn iftiinku wax macno ah ma soo kordhin lahayn. xigmadda labaad wuxuu ku yiri dadka kuwa ugu awoodida badan guuleynta naftooda ay guuleeyaan iyo guusha naftooda inay gaarsiiyaan waa dadka fiiriyaan waxa ay haystaan oo Ilaahay waxa uu siiyay ku qanacsan haba yaraadaane, oo aanan fiirin dadka kale waxa ay haystaan. maxaa yeelay dadkan dad qanaaco laga helo weeye. qanaacadana waa keed aan dhammaanayn siduu nabiga sheegay sallallahu calayhi wasallam. qofka haddii uu qanacsan yahay waa qof hodan ah, haba ahaadee qof faqiir ah. xigmadda saddexaad wuxuu ku yiri waxaan kaaga digahayaa inaad dhahdid ma awoodo arrintaa, ma awoodo waxaas, ma sameyn karo waxaas, ma baran karo. ee waxaad dhahdaa aniga ayaanan rabin, aniga ayaanan u socon, aniga ayaanan dadaalin, sidaa dheh. maxaa yeelay haddii aad dadaali lahayd waad xaqiijin lahayd arrintaa oo waad gaari lahayd. dhammaanteen wuxuu yiri waan awoodnaa inaan wax kasta sameyno, inaan gaarno wax kasta aan rabno, inaan barano wax kasta, balse annaga ayaanan u socon, annaga ayaanan dadaaleynin si aan u gaarno waxa aan rabno. xigmadda afaraad wuxuu ku yiri xigmo waxaa la yiraahdaa inaad garatid waxa aad sameynaysid. khibradna waxaa la yiraahdaa inaad taqaanid shayga sida aad u sameynaysid. haddii aad taqaanid shayga sida aad u sameynaysid khibro ayaa leedahay. guushana waxaa weeyaan in aad sameysid shayga inaad ku dhaqaaqdid ayaaba guul ah ayuu yiri. xigmadda shanaad wuxuu ku yiri haddii aad maqashid taleefankaada oo dhacayo waxaad dareemaysaa qof inuu doonahayo inuu kula soo xiriiro, qof xiriirkaada doonahayo inuu kusoo wacay ayaad dareemaysaa. sidaas waxaa la mid ah haddii aad maqashid aadaanka rabbiga bini aadamka iyo shay kasta rabbi u ah ayaa wuxuu doonahayaa inuu kula soo xiriiro. maxaa yeelay salaada waa xiriirka u dhaxeeya addoonka iyo Allah. jawaabtaadu waxay noqonaysaa uu yiri aadaankaas aad ka jawaabtid hadba heerka uu gaarsiisan yahay waajibka, sida aad u aaminsan tahay inuu yahay muhiim iyo salaadu inay tahay waajib. arrintaas sida ay kugu weyn tahay ayay jawaabtaadu noqonaysaa. balse haddii ay arrintaas kugu weyneen waxaad maba ka jawaabaysidba, kama jawaabaysido masaajidkii meesha lagu dukanayo maba aadaysid wey. halkaas ayaan ku sameynaa ilaahay wixii faa'iido ah aan nagu anfaco oo kuwii ka faa'iidaystaa naga dhigo. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.